xifaalka TikTok iyo reer galbeedka ayaa baryahan aad u soo xoogeysanaya. Wuxuu soo bilowday sanadkii 2020 xilligaas oo isticmaalku wadanka Mareykanka TikTok uu aad ugu faafay. yaa xasuusta Mr. Trump Somalia waxa uu soo saaray xilligaasi wareegto looga dalbanayo in TikTok laga iibiyo shirkad Mareykan ah ama ay wajihi doonto in laga mamnuuco gabi ahaanba wadankaasi. dhowr sano kadib TikTok waxaa laga mamnuucay goobaha dawladda iyo in shaqaaluhu dawladdu ay isticmaalaan. badii wadamada Yurubta waqooyi ayaguna waxay sidoo kale mamnuuceen in la isticmaalo ama lagu isticmaalo goobaha dawladda. Haddaba sababtu maxay tahay? Hogaamiyaasha wadamada reer galbeedku iyagu waxay ku doodayaan in xogaha dadweynaha ay TikTok u gudbin karto dawladda Shiinaha. Haddii dawladdu ay sidaa ay dalbato TikTok waxa ay ku doodayaan in xogaha dadweynaha dadka Mareykanka isticmaalahay lagu kaydiyo wadanka Mareykanka gudihiisa. dadka indha-indheeya arrimahani waxa ay ku doodayaan in muranka u dhaxeeya TikTok iyo wadamada reer galbeedku uu yahay hagardaamo ay soo abaabuleen shirkadaha tiknoolajiyada Mareykanka ka jira sida Facebook iyo Google oo inta dad badan ay qabaan in TikTok qaybo badan oo kamid ah saamiga suuqa tiknoolajiyada ay kala wareegeen. dadweynaha Mareykanka ee TikTok isticmaala iyagu waxa ay muujinayaan shaki. haddaba adiga TikTok isticmaala sidee kula tahay arintani? Salaamu calaykum.